qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Ceerigaabo ayaa aragtidooda ka dhiibtay go'aankii maalinimadii shalay ay labada xisbi mucaarad ee Somaliland sida wadajirka ay isugu raaceen in doorashooyinka dalka lagu qabto isla sanadkan gudihiisa ee 2020 kadib markii madaxweynaha Somaliland uu khudbad sanadeedkiisii uu ka jeediyay labada gole qaran uu ku sheegay in ururadii xisbiyada la furi doono si looga baxo isqabqabsiga iyo khilaafka xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka u dhaxeeya waana kuwan iyagoo arrimaha doorashooyinka ka hadlaya diintiina waynu ka fogaanay dimuqraadiyaddiina waynu ka fogaan oo diintiina kumaynu dhaqmin oo dal macna diinta isku xukumaya maynaan noqon wixii aynu qaadanay gaalada kala nimina maynaan qaadan oo ahaa muxuu ahaa dimuqraadiyadda sidaa darteed waxaa noqotay in dalkii uu curiyaan noqdo oo ka curiyaamo xaggii maamulka xaggii horumarka xaggii doorashooyinka oo ragay dee 20 sano iska fadhiyaan sidaa darteed doorasho kasta oo haru soo marta mid kasta ha noqotee haddaanu nahay annagu dadweynaha Somaliland waxaanu taageersanahay dawlad mid kasta oo haru soo marta baanu taageersanahay waxaanu taageersanahay inaanay dhaafin 2020 inaan doorashooyinku dhaafin guud ahaan horta dalku wuxuu ku dhisan yahay shuruuc iyo qawaaniin walaal ka soo gaaro kala dambeyntii nidaamka dalka ku socota waxa la moodaa intii la baalmaray xagga xukuumadda guud ahaan bay inta baalmartay marka warmartiyada ka soo baxay labada xisbi mucaarad shakhsiyan aad baan u taageersanahay waana soo dhaweynaya waxaan u arkaa kuwa xal u ah dalkan iyo dalkan mid xal ma aha qof ku tumanaya sharciga baalmariyo wuxuu madad ku heshiisay isla markaana doonaya keligii tiisa inay ahaato waxaan u arkaa maxay qodobada ka soo baxay xisbiyada mucaaradka dalkan xalwa waana ku garab taaganahay waana soo dhaweynaya wax sax aan u arkay waayo dalku qof qulimo xukumi karo waxay u baahan tahay dastuur bay leedahay dastuurku uu jabiyay musabix marka waxay aniga ila tahay inay qoladaas ay saxnayd labada xisbi Faysal Ali Waraabe iyo ninka Cabdiraxmaan Cir wax sax aan u arkay xisbiyada mucaaradka waxaa leen in doorasho loo qabto 2020 waliba bisha koobaad madaxweynaha doonaya la qabto go'aankii qaateen oo la raacsanay hadii ilaa cashuurta bixiyeen qoon bixin hadeen ha bixin fiican baaqanay labada xisbi soo jeediyeen horta waa baaqday cadaaladda in doorashada dalka uu doorasho laga geliyo waayo golihii guurtida iyo golihii rabbi kuma soo diiday adigu sharci dejintii oo dhan ilaayo golihii deegaanka waa muddo dhaaf in la qabtaana waa waajib madaxweynaha waxaanu leenahay kuma wali maanta inaad tiraaho xisbiyaha axsaab baan furaya way xilligeed inta doorashada kaaga hadhay adiga bayagoo hadhay marka waxaanu leenahay baaqa iyo waxyaalaha ay soo jeediyaan xisbiyadu u dhagan nuglow isku tashi badal ku dhisan yahay aankii labada xisbi way ku saxsanaayeen waana ku taageersanahay waxaanu ka codsanay inay mudaharaad ku baaqaan muddo socda bil gudaheed baan xisbiyada horta ka codsanay laakiin waxaanu sheegnaa muuse nin wanaag ogol maaha dictator weeye wuxuu doonayaa meeshan xukun military ku qabsado Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Sugulle Saab TV magaalada Ceerigaabo